anigoo aad u naxsan oo aad u murugaysan ayaan caawa soo bandhigi karayn aan soo bandhigi karayn wuxuu ninkaas ahaa dhamaantiin waxaan idin farayaa inaad ku baraarugsanataan adunkana wargeerida saa ugu baraarugsanataan cabdiqaadir wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan oo samafala ah suxufi buu ahaa wuxuu ahaa macallin barbaariye ah wuxuu ahaa kana hogaamiya wuxuu ahaa kana toosiya wuxuu ahaa ka haddii aanu khaldannahay qaladka naga qabtaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa innamaa tuwafuuna ujurakum yowma alqiyaama waman suxsixa cani innaari faudkhila aljanna cabdiqaadir oo keliya kuma aasayno taariikhdii guud ahaan gobolka sanaag iyo degmada ceergaabo ayaan halkan ku aasaynaa wuxuu ahaa addoon wanaagsan runtii haddii aad khaldan tahay wuxuu ahaa qof ku nasteexeeya waxaa qofkii ugu horreeyey ee maalintan ceergaabo yimi anigoo wariyo inuu yaroo galbeedka yimi gacanta ay qabtaan wuxuu ahaa aqoon-yahan macallin mu'arikh ama taariikh badan iyo markaasi xigmad badan ay ku duugan tahay nin aqoon leh buu ahaa aqoon maadi iyo diiniyaba waa lahaa nin ehel cibaadahana waa ahaa iminka oo saxafi macallin nin taariikhyahana wuxuu ahaa nin xirfado badan leh wuxuu ahaa nin bare ah oo dhiga wuxuu ahaa nin xirfadle ah oo sidoo kale ah saxafi ah inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatul mawt laa jalun laa yastaqdim walaa yastakhir allah u naxariisto ilaahay naxariista jannaha ka waraamiyo cabdulqaadir axmed xasan he was my best friend wuxuu ahaa saaxiibkaygii koowaad buu ahaa aad iyo aad ayaan ugu murugaysanaa caawa habeenadii aan ugu naxdinta badnaa bay ii tahay waxaanse aan aad ugu faraxsanahay maadaama aanu kulannay muddo hadday ka dambaysay wiig oo aanu masjaamic intaan meel ku wadaysanay masjaamica ku wada tukannay mar kastoo aanu kulanno waxaanu ka wada hadli jirnay oo aanan kala hadli jiray cabsida ilaahay taqwada ilaahay baan u dardaarmi jiray naftayda iyo naftiisa u dardaarmi jiray waana iga maqli jiray geeridaa aanan filanayn aan la kulmay cabdulqaadir waxaanu isnaqiinay muddo aad u dheer waxaanu isbarannay 91kii ilaa 91kii saaxiib baanu wada ahayn baanu soo wada shaqaynay shaqooyin badan baanu soo wada qabnay wuxuu ahaa nin daacad ilaahay ah ay ku badan tahay wuxuu ahaa nin dadka iska cafiya wuxuu ahaa nin aqoontiisu ay heer jaamacad kor u dhaaftay oo aqoon rabbaaniya leh oo qoraa ah ayuu ahaa ilaa intaanu isnaqiinay intaaba maanan kala tegin waanu wada soconnay waanu isxidhin jirnay si waaran waanu xidhin jiray wuxuu ahaa halboole ama shacaac baxaya oo gobolka sida runta ah u ahaa laambad ifaysa ayuu ninkaas dadku ma yaqoon anigu si gundheer baan ninkaa u qiinay waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay jannadii fardowsa geeyo ubadkii iyo dadkii uu ka tegayna ilaahay inuu ka siiyo iimaan inuu ilaahay ka siiyo samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo taariikh badan baanu ninkan soo wada marnay aanan hadda caawan xadin awgeed uga sheekayn karayn mar baan si gaar ah ugu yeelan doonaa media ugu yeelan doonaa waan taariikhdiisa oo dhammaystiran iyo waxyaaluhu caan ku ahaa aan soo bandhigi doona caawa xaraaligaga ahaanaysan anigoo aad u naxsan oo aad u murugaysan ayaan caawa soo bandhigi karayn aan soo bandhigi karayn wuxuu ninkaas ahaa dhamaantiin waxaan idin farayaa inaad ku baraarugsanataan adunkana wargeerida saa ugu baraarugsanataan cabdiqaadir wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan oo samafala ah suxufi buu ahaa wuxuu ahaa macallin barbaariye ah ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyaan leh annagoo cabdiqaadir waxaanu isku barannay waqtigii ugu horreysay magaalada hargeysa isagoo macallinka ah markaa waqtigaas aanu isbarannay 2001 bay ahayd magaalada hargeysa isku xaafad baanu ahayn waqtigaa aanu isbarannay wuxuu ahaa macallin nin wanaagsan oo dadka aad u soo dhoweeya oo ingiriisda dhiga buu ahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo waqtigii dambena dee saaxiib baanu noqonnay markaa caawa waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto naf waliba geerida way dhadhaminaysaa laakiin tan oo kale waxa weeye ilaahay u naxariistan leeyahay waxaan halkan tacsi uga dirayaa walaalkay saaxiibkay cabdiqaadir axmed xasan ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay naxariistiisa aan dhammaan ilaahay qabriga ha ku siiyo aniga cabdiqaadir saaxiibadiisa ugu dhowdhow baan ka mid ahaa cabdiqaadir axmed xasan keliya shaqo wadaagun maanu ahayn cabdiqaadir wuxuu ii noqday macallin baruu ii noqday cabdiqaadir waxaan ku xasuusan doonaa wuxuu ahaa hagahayga wuxuu ahaa kana hogaamiya wuxuu ahaa kana toosiya wuxuu ahaa ka haddii aanu khaldannahay qaladka naga qabta ilaahay qabriga ha u waasiciyo ilaahay naxariista janno
ha ka waraabiyo. waxaa gobol Sanaag uu waayey mid ka mid ah taariikhyahanadiisa sida aadka ugu xeeldheer u ururiyay taariikhda gobolka Sanaag iyo guud ahaanba taariikhda ummadda Soomaaliyeed. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt wa innama tuwaffuna ujurakum yawma al-qiyamah waman suhsiha 'anil naari fadkhila al-jannah wama al-hayatu ad-dunya illa mataa'ul ghurur. ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo Cabdulqaadir Axmed Xasan mid ka mid ah suxufiyiintii ugu haldoorsanaa gobolka Sanaag oo noo ahaa role model. ilaahay ayaa naga jeclaaday maalintiisii ayuu dhintay. qof kastina waa uu dhadhaminayaa geerida waase lagu kala horeynayaa. waxaan qoyskiisii qaraabadiisii iyo cid kasta oo magaciisa garanaysa aan uga tacsiideynayaa geerida ku timi Cabdulqaadir Axmed Xasan walaalkeen. dhammaanteena waxaan maraynaa oo ku wada xukumanahay dil. waana ognahay qof kasta inuu dhimanayo laakiin waa lagu kala horeynayaa qadarta iyo waqtiga ayuunbaa kala horeeya. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ayaan leeyahay. gooraan waxaan halkan maanta ku aasinay Cabdulqaadir Axmed Xasan. Cabdulqaadir oo kaliya kuma aasino taariikhdii guud ahaan gobolka Sanaag iyo degmada Ceergaabo ayaan halkan ku aasinaa. ilaahay horta ha u naxariisto. Cabdulqaadir intaan ka aqaanay nin wanaagsan oo gobol ahaa muddo iminka 10 sano ah ayaan wada shaqaynaynay Cabdulqaadir oo saaxiib ahayn oo ehel ahayn dad helaahayn waalid iyo macallin kaliya nooma ahayne wuxuu ahaa iftiinka kaliya aan ku dhaqaaqno ka saxaafadahan gobolka Sanaag. runtii talooyin badan buu nasiiyay balse maanta isagaytiisi noqotay annaguna waxaan jeclaynaa talooyinka aan ku shaqayno. Cabdulqaadir intaan ka aqaano 1900 ama hilaadii 77 wuxuu ku dhashay gobolka Sanaag. Cabdulqaadir wuxuu ahaa macallin dugsiyada sare gobolka iyo dalka wax ka dhigay. Cabdulqaadir wuxuu dad badan ayuu wax baray oo ka mid ah dhalinyarada imika loodkayga saxaafadda iyo qaar ka waaweynba. Cabdulqaadir wuxuu iskaga tagay hal xaas iyo 8 caruur ah oo 7 wiil iyo gabar ah. ilaahay ha naxariisto sabir iyo iimaan ilaahay ka siiyo awr khayr qaban ilaahay ugu bedelo. sidoo kale waxaan ka taxsiidinayaa dhammaan Axmed Xasan walaalihii ubadka dhaleen waxaan leeyahay ilaahay sabir iyo iimaan aad ka siiyo awr khayr qaban ilaahay ku bedelo. Cabdulqaadir waxaan leeyahay ilaahay jannada ha ku casimo sidii ifka looga jeclaa ilaahay khayraha looga jeclaado lagu soo dhaweeyo. Cabdulqaadir maanta telefoonkaygii dablaan buu la dhacay dad fara badan ayaa soo garaacay oo dalkay daba joogay kuwaasoo runtii aad uga naxsanay geerida Cabdulqaadir oo u qaada waayay. waxaan leeyahay samir yeeban naga wada siiyo. inna ilayhi raaji'uun waxaanu caawa keenay hoygiisii xaq ahaa Allah ha u naxariistee saaxiibkay macallinkaygii saxaafadda Cabdulqaadir Axmed Xasan kaba weyne. waxaan halkan uga tacsiideynayaa ugu horeyn ehelkiisii caruurtiisii xaaskiisii iyo guud ahaanba qoyskiisa. waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan saadiq ah idinka siiyo. waxaan sidoo kale aan u tacsiideynayaa warbaahinta guud ahaan gaar ahaan warbaahinta magaalada Ceergaabo iyo gobolka Sanaag oo uu ahaa bare ama hage. annagu Cabdulqaadir waxaanu wada qabanay shaqooyin badan buur iyo banaanba waanu wada maray. wuxuu ahaa adoon wanaagsan runtii haddii aad khaldan tahay wuxuu ahaa qof ku nasteexeeya oo ku bara wadada wanaagsan wadada khaldanna ka duwa. runtii maanta kadis bay ugu noqotay geeridiisaasi waxay ahayd muutul qafle. ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaan ha inaga siiyo. waxaan sidoo kale halkan aan uga tacsiideynayaa saaxiibkay Ismaaciil Bakeyle iyo waliba Maxamed Yuusuf Bakeyle iyo dhammaanba family-ga oo ahaa abtigood. ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo ayaan leeyahay. dhammaanteena samir iyo iimaan ha inaga siiyo. rabbi naxariistii jannaha ugu deeqo macallin wariye aqoon-yahan wax kastoo qof bilaadan lagu sheegi karo qof aan ku sheegi karna maanta. Cabdulqaadir Axmed Xasan anigu waxaan isbaranay 8 sano ka hor baan isbaranay. maanta 8 sano laga joogo xilliga aan isbaranay. waxa qofkii ugu horeeyay ee maalintan Ceergaabo yimi anigu wariyo inuu yaro galbeedka yimi gacanta ay qabta wax ii bilaaba dadka igu dara. maantana ilaahay baa naga horeysiiyay inaan xabaashiisa joogno marka dhammaanba qoyskiisii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo guud ahaanba bahda warbaahinta ee gobolka iyo Soomaalida oo dhan waxaan uga tacsiinaa geerida naxdinta ay ku timi wariye Cabdulqaadir Axmed Xasan. si gaar ah waxaan uga tacsiinaa reer Axmed Xasan iyo reer Bakeyle oo ugu horeeyaan Ismaaciil Ayuub Daawud iyo Maxamed oo ahaa aaskii marxuum Cabdulqaadir Axmed Xasan. runtii wuxuu ahaa adoon aad u wanaagsan intaan ka aqaanay muddo ku sugan ilaa 18 sano ka hor. anoo Cabdulqaadir isbaranay
anagoo isku baranay inaan walaalkay ay wada shaqayn jireen ururkii sayfiido ay ka wada shaqayn jireen runtii wuxuu ahaa nin bashaasha adoon wanaagsan dadku ka nabad galaan oo buu ahaa afkaaban runtii ahna suugaanyahan runtii ahna qoraa ahna suxufi ahna macallin dhammaan waxaan ka tacsiideynayaa bahda midiyaha iyo bahda macallimiinta iyo dhammaan gobolka waxaan kaloo aad uga tacsiideynayaa saaxiibkayga maxamed cabdiqaadir oo ahaa aabihii iyo dhammaan cabdiqaadir iyo dhammaan yuusuf bakeelo abtigood ahaa waxaan leenahay dhammaan ilaahay kitaabkiisa madagtaa ka siiyo waxaan joognaa aaskii ustaad saxafi cabdiqaadir axmed xasan oo ahaa haldoorka gobolka Sanaag aqoon-yahanka ahaa xubin muhiim ah oo gobolku leeyahay oo ahaa madxaf oo ahaa muxuu ahaa maktabad soconaysa oo guuraysa qoraa weyn baa naga baxay aad iyo aad baan uga naxay aad baan uga xunahay waan tacsiidinayaa dhammaan familygayga aniga adeerkaygu ahaa aad buu igu dheeraa aad iyo aad baan uga murugeysanahay maxaa geerida naxdinta leh ee xaafadda ku dhacday ee family-ga ku dhacday qoyska ku dhacday waxaan leeyahay ilaahay dhammaanteeyo samiri iyo imaan naga siiyo sidoo kale reer gobol Sanaag reer Soomaaliland reer ummadda Soomaaliyeed oo dhan ilaahay ka siiyo samiriye iimaan macallin buu ahaa suxufi buu ahaa wax walba wuu ahaa maanta wuu tagay tiisii bay noqotay shil baa dhacay waxaan leenahay ilaahay waxaan uga baryaynaa in jannada firdaws al-a'la ka waraabiyo caruurtii uu ka tagayna oo samiri iimaan saadiqa Allah ka siiyo halkan waxaan ka tacsiideynaa Cabdulqaadir Axmed Xasan ilaahay waxaan uga baryaynaa adoon wanaagsan buu ahaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkiisii iyo aqrabadiisii iyo islaamka iyo bahdii saxaafaddu ka baxay iyo bahdii aqoonta ilaahay uu yacniga magaranaysa samir iyo iimaan ka siiyo daartii uu ka tegana ilaahay inuu daar ka khayr badan ugu bedelo gobolka iyo degaankana wuxuu ahaa nin miisaan culus ku leh nin aqoon leh buu ahaa aqoon maadiya iyo diiniyaba waa lahaa nin ehel cibaadahana waa ahaa iminka oo yacniga dariiqa mustaqiimka ah iminka ku taagnaa anigu muddo dheer baan aqoon u lahaa oo ilaa iyo cimrigiisa ah isagoo yar baan garanayaa isku xaafad baanu ahayn ehel baanu ahayn ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu daartii uu ka tegay daar ka khayr badan ugu bedelo bahdii uu ka tegay aqoon-yahanka ahayd ee saxaafadda ahayd ee culumta ahayd kayd buu ahaa maktabad guuraysa buu ahaa nin xog badan haya buu ahaa maanta tiisii bay noqotay qof walibana maalin buu leeyahay ilaahay waxaan uga baryaynaa waaynu erga uga nahay inuu إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى إلهي سبحانه وتعالى هون حريصته الأستاذ عبد القادر أحمد حسن وها قويهن معلم مؤرخ أما تاريخ بدن يمركاسي حكمت بدن أي كدو جنتهاي إلهي سبحانه وتعالى وحنو يديننا جنات الفردوس الأعلى إنو كورابيو ehelkii iyo ubadkii iyo dhammaan faamiligiina inuu samariye imaan ka siiyo dhammaanteenba samariye imaan ilaahay subxaana wa tacaala inaga siiyo taasaynu ku wada xukumanahay geeridu waa xaq ahlu cibaadu ahaa nin afgaaban oo markaas urursan buu ahaa oo saxafiyiinta markaas ugu urursan ee aan wax wanaagsan mooye wax uu xun qorin buu ahaa الله بارك إلهي سبحانه وتعالى جنات الفردوس الأعلى كورابيو وناقيس أنا مرخاتب عن قرنهاي النبي عليه الصلاة والسلام أنتم شهداء في الأرض وحتين لكم مرخاتي أدون كان ومضى عرب كده مركاسي سداي دتكور دمي رنتي لو محدود بين الشيغان وحار أدون عادي أدون أحسن تاسع إنه مرخاتي قرنهاي إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى وقهرين وعن هلك نقد عيننا ولكن عبد القادر صحفي معلم يعني تاريخيهنا ورمتي تذكير فراكوتريسكا هاي قبل كان كسوتشي لها سناج وحن الله وبرينا مركب كوبات قبرك سن الله ونوريه هذا بقبرك الله كبد باديو شننا إله تعالى بيره شننا كان بدنا إله قبرك سها وقدقه sababta ayaa kala duwan geeridu waa mid mana ogi sida lagu dhimanayo waxaanu ilaahay uga baryaynaa walaalkeen geerida kadiska ee naxdinta leh ee runtii maanta waxa weeyaan runtii ku dhacday ilaahay samiriyo iimaan inuu ka siiyo ehelkiisii qaraabadiisii asxaabtiisii
bahdiisii saxaafiyiinta bahdii macallimiinta guud ahaan gobolka Sanaag dadka ka soo jeeda oo dhan waxaanu leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun walaalkeen oo maanta geerida kadiska ay ku dhacday waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna ilaahay subxaanahu wa ta'aala samir iyo iimaan haga siiyo iyo dhammaanteenba sidaa laga soo sheekeeyey wuxuu ahaa markaa shakhsi aad iyo aad u qaaliya buu ahaa oo markaa inagu qaaliya ayuu ahaa oo aqoon-yahaniinta ku jira waxaynu leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waqtigiisii bay noqotay ha u naxariisto innaguna dee taasun baynu ku wada xukumanahay oo loo baahan yahay inaynu wada diyaar garowno ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaynu uga baryaynaa inuu naxariisto qabrigana u nuuro dhibaatada maanta ku dhacday iyo markaas ee geerida naxdinta leh ilaahay inuu uga dhigo markaa dembi dhaaf qabrigana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u nuuro dhammaanteen haddaynu nahay dhammaan reer Caligaabo bahda saxafiyiinta ehelkii iyo qaraabadii dhammaanteenba ilaahay subxaanahu wa ta'aala samir iyo iimaan ha inaga siiyo aaskii walaalkeen Cabdiqaadir Axmed Xasan Cali oday Kabaweyne oo maanta ay tiisii noqotay runtii waxaanu ka tacsiideynaynaa ehelkiisii qaraabadiisii iyo dhammaan bahda waxbarashada iyo bahda saxaafadda oo ka tirsanaa labadaba runtii Cabdiqaadir wuxuu ahaa nin xirfado badan leh wuxuu ahaa nin bare ah oo wax dhiga wuxuu ahaa nin xirfadle ah oo sidoo kale ah saxafi ah maanta waynu weynay taano geeridan oo ku wada xukumanahay nafina ma uga goorta iyo goobta ay ku dhimanayso midna isagii maanta wuu dhintay ilaahayna waxaanu weydiinaynaa inuu ku sugo qowlka saabitka qabrigana uu waasiyo uga dhigo beerbeerihiisa jannada kamida innagana inooga daba naxariisto waa digniin innaguna waan daba soconnaa laakiin geerida waa lagu kala horeynayaa ilaahay waxaanu weydiinaynaa inuu raxmadiisa waasica siiyo ubadkiisii iyo ehelkiisiina samir iyo iimaan ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kulli nafsi daaqitul mawt waxaan tacsiitii aan yar halka uga dirayno ama uga dirayaa Cabdiqaadir Axmed Cali oo maanta geeri naxdin li ku timi oo degdeg ah ilaahay waxaan uga baryayaa in ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo sakaraadkii dhaafiya ilaahay inuu su'aasha u fududeeyo wuxuu ahaa sida laga sheekeynayay nin aqoon-yahana nin bare ah nin joornaalista ah oo loo joornaalista sharafta badan ah marka ilaahay maanta tiisii ahaatay inaguna waa ku daba jirnaa ilaahay waxaan uga baryaynaa waalidkiisii reerkiisii iyo dadka reer Caligaabo oo dhan iyo dadkii la shaqeyn jiray oo dhan ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo isagana ilaahay janno fal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan halka taasi ku dirayaa Cabdiqaadir Axmed Xasan oo inuu xabaashiisii joogno ilaahay ka dhigo beeraha jannada ka miga qabrigiisa Cabdiqaadir Kasukow inaanu isku shaqanahay wuxuu ahaa aniga waalid buu ahaa taliyo tusaale isiiya ruuxantina geeridiisu geeri naxdin la baahayd laakiin waa lagu khasban yahay lagu samro ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana ka dhigo beeraha jannada ka mid ah qoyskiisii ubadkiisii iyo ooridiisiina ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo